KNN nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino awr dabar la'aan dhahay war hooy hooy waxa cuna dugaage awr hadduu diboodo duunyadana ka leexdo calooshoo dilaacdiyo dugaag buu u halis yahay ruuxii dagaal badan dulmigana xumbaarsada dubaaqooyin gaariyo dhaqar buu u halis yahay eeddaan la yaabadee arcankee eedu daraana miyaad ka wadiin war waxaa la yidhi maal iyo dhaqaaliya ninaan magac ka doonaynin muraad iyo dangaarana shaqada ugu mashquulaynin musuqmaasuqay aragtayoo waay lagu maalay maankiyo shakigii qalbiga lagu madoobeeyey maamule hufnaan muuqatiya daacad uga mayra warkii laga maqlana meel marshiyo macallin sooma wilaayadadkaad sheegoyda maalmoodu malhaayo ka eri waxaa kalou yidhi masqaniinyayaa iyo libaax micida saariyaaba maral loo dilyaa iyo si kale loo macneeyaaba naf waliba mudday leedahay iyo maalin iyo saacad oo waa midaan muddadi loo makibay minid la dhaafsiina maandheyma waxaad uga jeedaa malaka mayd muddaa uu taal mana ku mooga maandhehe war waliba leeray hamasho absuu habaarna taagdoruu habaartinha keerteen isagna arooda ani warkaysi fiican u dhagaystaa abwaan maymuun biyow waxay tiri hed aan heddaada ahayn hamuunkaa ma goyso hooyadaa hadday haysane hey bisay unkaa rabtaa war wax ma ogida maymuun waxay tiri bilisey bilaal xabashaa kaabaxsii maroon bas ilaa tiraadin biraaslenku haay maymuun biyo waxaa kaloo ay tiri ballanti waa ka baxoo beentay cadlee waaye beerninkeedii joogana balka dhiibi maayo maymuun waxaa kaloo ay tidhi ilaahay sidana waa yaqaan isaab malaa'iku keeno way tidhi war adeer maymuun biyowdana sheegaysaan ma soodaaniyad bay ahayd afkaada allah ku celiyo gabar soomaaliyeedoo abwaanaday ehe war gobolyadan maanta aad sheegaysaan kuwii hankoolka ma ahan warnimayo waxaa la yidhi fadwo beeca sheekh haysta iyo jaahil lacag haysta iyo cunug ka amar qaato oon diidin hadalkooda waa waxa adduunkii qarribay gebi ahaantiisa oo shacabka meelaha fadhiya loo qarxinayaaye intaasaa ku soo koobaya ayaanan sii badin warwar ma haysaane doodii ayaantaanba taagnaydoo cabdiraxmaan cabdishakuur ka bilaabatayoo mar siyaasadda gashay marna diinta gashay waa la soo afjaray sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada ayaa soo afjaroo ka hadlay wuxuuna yidhi wax kastoo dhacaba hadallada cabdiraxmaan soo duubay oo ugu dambeeyey waa lagu qanci karaa waana la qaadan karaa marka warkaasi halkaasuu ku afjaranyay ila tahay aryaadhaha guddoomiyihii culummadu hadduu ka warramay wixii warkaas loo sii wadwado waa wax ula jeed dhinac kastoy taabahaysana waxaan dhihi lahaa how imaam dhex jooga bayd ilaah waxaan kuu eedo ma aqaan imaam dhex jooga bayd ilaah waxaan kuu eedo ma aqaan haye war wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdi faarax siciid juxa wuxuu yidhi sanadkan wadaadkii ay wadaad kale isqabsadaan naartuu ku shaabadeeya siyaasigii siyaasi kale ay isqabsadaanina qarandimisnimuu ku shaabadeeya haa runtiisu lankii hooga koodhow hunsulkale ka dhaway waa leere war aniga waxaan la yaabay xooga wadaniinta facebook isticmaala wax kastoo aad soo qorto qarandumis ay kugu jawaabayaan xoogaga wadaniyiintu maxaarisul jamhuuriya warnimayow maantoo dhan bay gabaydayna hadda gawigayga dhegaysta xalay gelin dambeedkii mar aan gamaa ka soo toosay wax kale ayuu suurintaasaan ku soo koobayaa war gabayadii markaad farba intifaaf u qaybiseen ayay faraha ka baxeen arooda aniga gabaydiinaas ma aqaanay gabaygayga si fiican u dhegaysta dhoobooyna soo maray dhagaxna soo arkaye dhaldhalaalkii xamaraa dhabarka igooye intaasaan ku soo koobaa dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dhareegne maad ka waddaa jaala dhoobada adna dhagaxa kii ka dhuntow dhibka diidow dhaxalku malid muu ka wada eebbaagoo gabaygi gooyo waxau iila ekaaday heestaan soo socota nin hadda ka hor qaadayee yidhi aan shagaan saxsooridi aan gareesta hooshe sooma diido
sooma diidi karo taanici heesta cabdulla sheegay waxaan ku soo xasuustay hees ay qaaday hiba maxamed hore u qaaday ninaa ka daba qaaday markaasuu wuxuu yidhi luquntayda dheer iyo laafyaha garaaraha warwar ma haysiina maanta baarlamaanka waxaa hor tegey wasiirada amniga iyo gaadiidka iyo taliyaha booliska ma xilkiyaa laga qaaday wasiirka amnigu sow xildhibaan maan haytaa xildhibaanadii hortegoo kale war maanta waran iyo gaashaana lagu dhegaya war wasiirka gaadiidku soo madaxweynaha jubbaland maahan Omar Gareen aryaadhaha horta ayaamahan alfa gruub intay ka baxda waa waaye waa la booliseeyey ma bac ka siiyay naqdeen war alfa gruub hadday boolis noqoto bac ka sii noqon mayse bug ka siiyay noqonaysa warwarkaan ay qasan inayna dhegaysta wasiir Omar wuxuu yidhi wasaaraddeed wax musuqmaasuq oo ilaa hadda lagu soo eedeeyey ma jirto ee su'aalahaad rabtaan weydiiya kadib xildhibaanada salaada wuxuu yidhi warbixinta inta dhowraha guud qaybta ugu badan adiga ku qornaa maanta oo kale in mahad salaad makrofanka loo dhiibo maba ahaynba sababtoo waa mucaaradan xisaabtan ka baxayn war xildhibaan cabdifataax wuxuu yidhi nimankan baarlamaanka la hor keenay su'aalahan weydiinayna maba ka jawaabayaan ee waraan loo joogan ay ka hadlayaan taas ma kasna us ani kasi laakiin isdhumiyay ida waleere war maanta oo kale xildhibaan cabdifataax warkiisu qabasho ma leh sababtoo ah taliyaha booliska hadda ka hor dagaaleen ayaa ka hor muuqda nin kastaaba wuxuu rabaa ha sheege waran loo waxaan ku leehay hadduu moolku hoos kuu liqoo madaxu soo jeedo ambaduul aan maamuli jiraa igu masiiboobay oo maqal hooyadeedaba martaan xari ku meershaahe adiguna majuusiga u tali marada kuu xaytay anna miiskiyaan taaganaha layna mari maayo warna macasalaamaan ku iri talana waa mawle warna macasalaamaan ku iri talana waa mawle abdullaw eebaa oge war weyn waay wadamada waxaan dhegaystay brofesor jawaari gudoomiyihii hore baarlamaanka oo shalay baarlamaanka fadhigiisii ka hadlay oo xilkiiba waa laga qaaday sidee nabadii nool ugu ogolaatay meesha edeb lahaw waa xildhibaan xasaasiyad lehe ambaroy xasaasiyad hay xusuusinin haddaanaa korkii oo dhani cuncunaye war soomaalida dhan xasaasiyad qabtay naga dhegaysta warka war arrimo xasaasiyaha dalka ka jira lagu yidhi xasaasiyad laguma dhihin wuxuu baarlamaanka soo hordhigay qoraal uu soo farsameeyey oo qaanuun ah oo uu yidhi iska fiiriyo hadduu idin anfacaya ka qaata wax hadal dheerna waa jeediyey oo tala ah marka waxaa baarlamaanka shalay ku soo biiray kelmado aan waayahan maqal oo naxariis leh oo kelmado odayeed oo dardaaran ah hadda ka horna hadraawi wuxuu yidhi erge iyo haddii afti loola tago tolow aabbaheed muxuu odhan lahaa oday lama file horta warka jawaari waa fiican yahay waxaase hore loo yidhi carraaba fadhaa quusiye warnimayow anigu shala brofesor jawaari waxaan ka bartay jamhuuriyad marka la dhisayo in loo baahan yahay marka koowaad dastuurka marka labaadna xeer hoosaadka golaha shacabka marka saddexaadna sharciga jinsiyadaha marka afraadna sharciga doorashooyinka marka madaxda kaloo la midka ahi markay hadlayso allaheed hadduu alla yahayaysa isxagxaganina wax aan ka baranno war inta aad sheegtay jumhuuriyadda somalilan way leeday ee wallaweynay xaalkiinnu mayjiid aan ku jiideebaa arooda horaa waxaa loo yidhi war waayeel haddii la yeeli lahaa danwaca waxar mu cuni lahayn aniga brofesor jawaari hadalkiisa waxaan u qaatay waan soo socdaa kowdhe waxna waa sidaa lama dhe ee baarlamaanow ha fududaan arooda aniga haddii warkayga la yeeli lahaay duurjoogtoo dhan leegama qaxi lahayn oo darsaalaha ma kala aadi lahayn war xildhibaan maxamuud siraaji wuxuu yidhi doorashadii 2016 haddii loo laabto oo ergadii wax dooratay wax doortaan